shirkani u dhexeeyay madaxda maamulada Hirshabelle iyo ismaamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ka furmay degmo xuduudeeda kala qaybisa wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee feerfeer ayaa waxay madaxdu uga arrinsanayeen sida ugu wanaagsan ee xal nabadeed looga gaari lahaa colaad beeleed 16 bishan ay ka dhacday nawaaxiga tuulada Abaal ee waqooyiga gobolka Hiiraan isla markaana juqraafi ahaan ku dhow xuduudka labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo u dhaxaysa beelo walaalaha wadadaga deegaanadaasi iyo sidii wadajir labada maamul uga shaqayn lahaayeen sugidda ammaanka deegaanada ku dhow xadka labada dal oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo laalaabteen dagaal beeleedyo kulanka xalraadinta nabadeed ee lagu qabtay hoolka weyn ee shirarka ee degmada feerfeer ee qaybta ismaamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida heer federaal iyo heer maamul waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirro iyo xildhibaano ka kala tirsanaa labada maamul ee Hirshabelle iyo ismaamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya la taliyaha dhanka ammaanka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hoggaanka ku-xigeenka guud ee deegaanka Soomaalida gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka feerfeer iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan shirka oo ahaa mid saacado qaatay isla markaana saxaafaddu ay dabajoog ka eed ayaa waxaa laga soo saaray laba qodob oo kala ah samaynta guddi ka kooban saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee labada dhinac heer federaal iyo heer maamul iyo in deegaanada lagu dagaalamay ay noqdaan kuwa ka caagan isticmaalka hubka ilaa inta laga gaaraya xal nabadeed oo waara gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Cali Jayti Cismaan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan oo si wada jira saxaafadda ula hadlay ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay shirka iyo qodobadii lagu heshiiyay waxaana ay sheegeen in maamulhaan ay diyaar u yihiin wax walba oo sahli kara in xal waara lagu soo dabaalo colaadaasi isla markaana ugu baaqay waxgaradka labada dhinac ee diiradu dhex martay in wax walba ay ku dhameeyaan nabad iyo xasilooni waarta haddaan nabadi jirin nolol ma jirto haddaan nabadi jirin horumar ma jiro qodobkii amniga ayaan maanta isla soo gabagabaynay waxaanan u xil saarnay saraakiisha amniga oo kala ah federaalka Itoobiya iyo federaalka Soomaaliya ciidanka new police iyo police-ka Soomaaliya ciidanka nabad sugidda iyo kan kale nabad sugidda saddexda talis lixda talis aan u xil saarnay labada gobernatoore ee guddiga amniga gobolada madax u ahayna annaga jeegaraynayna hadii Allah yidhi laakiin waxaan jeegaray reportka iyagu noo keenaan waxaan isla garan dhulkaas in uu ka caagan yahay hubka inta xal waare laga gaaray hadii xal waare la gaarana hub looma baahnaba inta ka horeysana inuu ka caagan yahay waxaan u xil saarnay oo aan ku jeegaraynayna kuna kontrolayna saraakiisha amniga isku soo ururina wuxuu ku dhamaaday is-afgarad iyo marxalad aan caawa la hooyo kala jawi degan ee nabadu ka soo muuqato waxaan leenahay odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo qurba joogta banaanka ka soo hadasha ee tolla ay reer hebelay tiraahda wax dadka wax taraya ku bedela oo maxay yihiin in la nabadoobo in la walaaloobo in la iska daayo xumaanta intaa ha lagu bedelo annaga ka mas'uulid ahaan ama labada maamul ahaan way naga go'an tahay arrintaas inaan dirbiga gaarsiino way naga go'an tahay xal waara inaan ku soo dabaalno waa naga go'an tahay waana ka ballan adu maanta labadii gelinba waxaan waqtiga naga qaatay qodobka koobaad ma aanan guda gelin qodobka labaad qodobkii koobaad waxaan ku dilay ama aan ku gabagabeynay inaan labada dhinac maamulka heerarkiisa kala duwan ay soo kormeeraan goobtii dhibka uu ka jiro goobta uu dhibka ka jiro oo ah areadii la isku qabsaday ee dilka iyo dhibka uu ka dhacay si loo ogaado dhulka aan doonayno inaan ka dhigno buffer zone ama dhul ka caagan waxyaalo badan sida hubka qodashada iyo degaanshaha saddexda qodobba inay ka caagnaato goobta si ahaan marka goob ahaan waxaa soo identify gareynaya guddiga oo uu ka kooban yahay ciidanka qaranka Itoobiya ciidanka liyu booliska iyo security-ga ama marajaaga gobolka saddexda xubnood oo dhan walba leh
oo dhanka Soomaaliyana 3 xubnooda dhankan kalena 3 xubnooda iyaga tagi doona goobihii Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News beledweyne